وحاول نبينا عليه الصلاة والسلام وكشك قصص فربضا ولا يرضى كصابسا القرآن كنا وكور رمي والقرآن كنا وكور رمي أصحاب الكهف إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى إلهي بشير دل يرى هايان با إلهي دل يرى آمنوا بربهم رب قد بالرميين وزدناهم هدى با إلهي أنا كنا هنون بارو بيرين با إلهي هنون بارو زيادة لي ودن waxay ku noolaayeen ninka boqorka ee wadanka xukuma oo dadka ugu yeero inay dadku isaga caabudaan oo la oran jiray magaciisa Tuqyaanus marka iyagu ilaahay bay garteen dhalinyaradaas id qaamu faqaaluu rabbuna rabbus samaawaati wal ard lan nad'uwa min dunihi ilaahan laqad qulna idhan شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا dadkii kale oo dhan ee wadanka ay kula noolaayeen oo dhan ninkan gaalka boqorka caabudayaan ilaahu haystaa oo rabbi u aaminsan yihiin laakiin dhalinyaradaasi waxay yiraahdeen maykan waa bashar markaas boqorkii baa loo sheegay lagu yiri wadanka waxa ku gula nool dhalinyar maaragtaana ilaahay rabbinimadaada inkiraysa marka uu ciidan u soo diray marka dhalinyaradii laba ayaa loo bandhigay laba mid baa loo bandhigay in maaragtaana diinta islaamka ay la yimaadeen ay ka soo noqdaan oo gaalnimadii ay dib ugu soo noqdaan imma in intoo iyaga siday u dhayihiin intoo la qabto la xidhxidho dhagax tuur lagu dilo dhagax tuur إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا إياك أبكى شيك يويري عدينا قبطان وعيدا كأبقركم نصدر أين هليلان وأي قعنت نقول لقان لما مد بين نقول سمين كران إما إني ملدو دا قال لماذا دي بنقول عليان إما ما ركتان إني نقحي نقول دلان مركا وحي فضلان إني ضلك الدنبا أي وقبحان سي دين تودي إيمانك وقيسان لماذا لا يحفظان inay aabayaashoodii hooyooyinkoodii ahaladooda iyo dalkooga ay joogaan waxay ka doorbideen inay islaamnimada ilaahay uu ku galladaystay inay ilaashadaan waa meesha ay culimadu leeyihiin diintaada islaamka meesha dhaawacaysa waa inaad ka tagtaa saaxiib xun oo iimaankaaga iyo diintaada dhaawacaya waa inaad saaxiibtinimadiisa waa inaad goysaa المرء على دين خليله فلينظر إلى من يخالل بنبي عليه الصلاة والسلام قفو صاحبك دين تأو قباء يا دين أديك نكون نقونيسي يعني ولو نك الله صاحبه سيسكيك بنبي عليه الصلاة والسلام ومجتمع لأن دنيرة واحد دور بدن ولي وحال الشيقة وكتبتك قرن عيال صبولا ما هين ودتكوكم فقراء ما هين بل waxay ka soo jeedeen reero wada aqniya iyo xoolo ay ka soo jeedeen oo malqabeena ma la fahmay Allah ina fahamsiyo dadna waxay door bidaan marka wadanka dhanba inay iskaga tagaan sheegay naga reeb markaas ay yiri waayahay reeba dhagax bay marka harra kala joogsadeen baa leeyay luqadii marka ay ku hadlayeen buu aygu kula hadlo wuxuu yiri ilaaha aad caabudaan aad rumayseen umman aniguna uu qaana inuu yahay rabbus samaawaati wal ardi xaseekay reebaysan iska dhaafaan raacibu ku yiri ay galabta af Soomaaliya kula hadla ka warama sidee noqon lahayd magaalada Gaarisa waa iska daayeen marka aygi markuu la hadlay waa iska dhaafeen habeen oo dhan bay guurayeen waa la raadinaya raadkooga lagu taagan yahay waagi markuu rabo inuu soo dilaaco waagu bari waa bariga markuu dhawaaday ayay arkeen marka kahf arkeen kahf wax weyn waa godka buurta dhexdeeda ka soo jeeda weeyaan marka bay dhaadeen halkan hangallo
ما أنت أونا هلكا هن أولو عاو عداد فيتك قلبت مركا عداد أي دعضو ودلكم مذوبادنا هنسيس عنو لما لين هدي لنا أداس عنو ولا نسو أركي مركز ساحدان لا حلي أونا وحي كجرا صعد بكجرا سفر ويدالين ويساعدان markay casar gaaban markay soo kaceen ayay isiraadeen markaa sidan kuma socon karno safarka lama gali karnee waan gaajoonaynaa waan haraadsanahay cuntaan u baahannahay raashine bal nin walow jeebadaada wixii lacag ku jirtay intood soo saarto ninka inoogu maaragtaanay inoogu socod fiican inoogu degdeg badan intood noogu dhiibtaan magaaladii ha ku noqdo magaaladii waa tan oo nagama fogaa ha inoogu noqdo deedna raashina ha inoo soo gado haddii laakiin la garto oo la qabta isaga yuuna na soo sheegina isaga keliya dhibaatada ha ku ekaato ku salliya nabigeena sallallahu alayhi wasallam deedna markaasay waxay bilaabeen markaa kiibaa magaaladii galay raashinkii buu soo iibiyey markuu lacagtii dhiibis yidhi ayaa lacagtii la fiiriyo sidaa loo eegay ninkii maqaayadda ama dukaanka lahaa baa ku yidhi lacagta halkeed ka keento wuxuu yidhi jeebaddeedaan ku sito anaa soo saaray lacagta cidna kama soo dhicin markaa buu yidhi adiguna xaggeed ka timido aniguna meelaan dheerayn oo dhow baan ka imiday buu yidhi lacagtaada iga qaado alaabtan isii markaasuu ku celiyay lacagtan halkeed ka keentay lacagta anigaa wato jeebaddeedan ka soo saaray oo adiguna halkeed ka timiday inteed ka timiday meel heblaayaan ka imid oo maba dheeri meeshaan ka imidee meel dhow baan ka imidee lacagta iga qaado baaqiga ii soo celi dadkii baa ku soo ururay markaa lacagtii baa laba ninkan lacagtu wata fiiriya buu yidhi lacagtii buu la eegay markaasaa yarkeera u naxay marka harraha laga joogsaday ayaa lagu yidhi ha cabsan ha murgin anagu dad muslimiin aan ahaa leedo dadka ma dhibno waxaan la yaabanahay lacagtan aad wadatay leedahay waxay kaga gada waxa laga jooga xilliga wadankan ay ka shaqeynaysay 309 sano ayaa laga joogaa baa lagu yiri meeqa sano 309 sano waa 3 qarni محاتهين مسلمين ويا مسلمين يا دائما سنتين الله بقر كيمي بقر كواما نقول ده بيسانك ما بقرنا إنما ما سوق قارنا وان مقلم ويا هذا الكيت كتيم ده أنا كنا يربانا هين بيودي بقر كابان كبح سناي هبين دم بنقوريني واقي مركو بريو عياد وهاي صوب حدنا جود بانقلو جود كيبه دليرتي يقصوا هذا waxaan u ballansanay caawna safarka leeyna bilowno sii baxsan وعلى وادور لادهين صدح قرنبو adduunku socday wala soo qaada ki yara boqorkii wadanka xukuumaya muslimka loo keenay waxa la boqorkaasi boqor daaciye buu ahaa dadka ilaahay xaqiisa ugu yeedha marka dad waxa jiri jiray oo dalkiisa jooga oo dhimashada in bacthi la soo bixi doono in inta la dhinto khalqiga la soo saari doono in kirsan baa jiri jiray marka daliil buu marka oo helay marka sariixa oo marxaati ma doonta boqorkii iyo waxa soo raacay iyo ciidankii iyo madaxdii iyo yarkii waxa dhalinyaradii noogay marka buu hadii aan hadda iniko ila socdo aan ka kor dego wayga naxayaano in la soo qabtoon iyakana aan soo sheegay bay moodayaane aniga horta u tagayay iniko ii kaadiyo buudi waana ka dhaadhicinaya mowduuc cusub yahay ardul waaqi aanu sheegaya in caalamku socday oo noloshoodii iyakana ilaahay joojiyay nolosha ayahay Allah baadna may cunin biyana may cabin tintoodii ismay bedelin dharkoogii isma bedelin awoodoodii ismay bedelin maalinkii siday ku jiifsadeen bay yihiin yaa ilaaliye marka yaa ilaaliye yaa arsaaqaayay yaa baahidooda daboolayay ayaa nolosha ku deeqay biyo iyo baad waa labadaasi waa asbaabta lagu noolaada oran karnaa quraankan ilaahay ku sheegay laakiin asbaabtaasi waa asbaab walaakin ilaahay qofka bini aadanka inuu noolayo bila baad iyo bila biyo وكرا ما الدليل على ذلك لغير أصحاب الكهف دليلا
صدح قرني بيجوجين عالمك يكو بينا أنا عبين بعدنا أنا عنين وأنا سدود اسمي بدلين ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قرآن إلى حب شيء قدك واحد كنا إحنا قاعدين بإلى هير الصدح بقول يسقال سنة رب كنا قاعدين بإلى هير وأنا سدود اسمي بدلين يكو إنك أيمك الحمد لله سكول بعد جانا إنسان وحبرش هذا ما دان هلكن وحلاقة يا با والدتي نقاركون مركي وانينا يعني نكوي دادان أبو ندبا إن مدي سكوي أبو امتحان كي بالله مرة يا صوما هنها ده بريس كي نوش قيس تقولي بريس كان العنتان واقعي كوي مركا ودعوة بحيو إيمانيات كيو عقيدة صفر عن لو قد دعيب ودلايو مركا بدأ بحيجا حناقينه هذيك أنيك يهويو يكن يتن أنتم به بريس كي له من عنا بودا مركا بدأ هذيك تبليغ أقوالي بودي وصل يا رسولك للسداس أصحاب الكهف waxbarashada ma diidayno wax noo barto waan u baahnaa wax noo barataan qofka muslimka oo qoyahan inuu noqdo waan u baahanahay laakiin hadaa tiraadid maadadan aan dhiganayo tacliintan aan dhiganayo man wax ku cuni kara hadaa tiraadid aqeedadaada khalba ku jira iska sax arzaaqaduna waa gooni tacliintuna waa gooni iskuma xidhno قوة إلهي كسيين واقوني أرزاقات لغو قدري لغو قرين واقوني خبرة داتا قانين واقوني أرزاقات إلهي كو قدرين ميل بيت الله واقوني شقا يسكم علي سيدة وحبرو واقوني وتعليم قونية والله بأني لغمانا مارمي كرو لكن هنا تراديد تعليم تابان أرزاقات دايدو كو حران تاهي تاسا لقد دقيا ولا لقد دقيا إلهي وصلوا دون يلويان فريست هذا فريست إن شاء الله والمقلة إنسان صومين إن الفريستان بيني في عن سرجوك فنيقا كفيع ما شاء الله الله ينبركي خير بيني قبوغ جعيلة إني قبوغ تجعيل الدينين يركي يرى مركا بقركي يعيدنكي الله سعودي أو جوجيي إساقا مركا دلن يردي بو سوق قلوري كدا دعي نقولكو دقاقي وعالمكو السعودي نولا شودنا يكن لجوجيي كدا دعي بو سيري مركا اللي مركو أو يميدي وحو أو يميدي يكور نفتها كوضا دعي إلا إنتو مغنا أيها لأن هردada ku siyar noqda dadna way ka dhacday naftu yakiiba isagii markuu soo galo dul yimiday uu arkay inay wada dhinteena isagana Ilaahay ruuxdii buu ka qabtay boqorkii iyo khalqigii la socdo markay raagsadeen ayakiiba markaa ka dabay yimid waxa u soo galeen dhalinyartii wada meeyda waa ka oranaya boqorku lana takhidanna alayhim masjida marka u soo galeen hay-adoodii ismay bedelin dharkoogii isma bedelin quwadoodii ismay bedelin waa sidoodii caalamka 3 qarni buu socdo dhaqaaqay imisa ummadda la 3 qarni imisa laakiin iyagu waa sidoodii ayguna waa sidiisi markaas ilaahay wa nuqallibuhum وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تغرضهم ذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا بإلهي سقوا إلهي النبي سأو الرمى عليه الصلاة والسلام بلغو يري عدعادو حقا مركا كتمادنا حقا هركي أمرينيني هرك حتى جركو قاعدادي متهبنين بالليل لكن دي الرمات كهيليين بالليل بني آدم جركيسو مقدنا وأباهن يهي دي الرمات عدادنا جركاقو وأباهن يهي جركاقو بينا وأباهن يهي بعدنا وأباهن يهي معانا وأباهن يهي دلانا وأباهن يهي إلا سعودنا وأباهن يهي إلا نصينا وأباهن يهي وعلى العاد مركا حقا كتمادنا حقنا هركا إلهي أوكينا وعلى ولبا مركا سائلا ونقلبهم وقلبين با إلهي مركو دنا عن ودالبا حقا كلان الرغين حقا مركو دالنا حقا كلان الرغين لكن أيغا إلا الرغين لما شيغين إساقا وكلبهم باسط ذراعيه أيغو ساس أهردا سوس على أيغو أفرت أدين بدلكو دتا بقنا دلكو قبتا أو صحدا
madaxana dhinacu dhakasa u dhiga bani aadanka waa la rogaya jirkooga laakiin ayga lama rogayn ayga maxaa loo rogi waayay baa la yidhi quraanku waxa uu sheegaya waa cilmi cajiiba quraanku wuxuu cadeeyuu sheegay aygu bogiisu baa la yidhi jirka bani aadanka uu ka adag yahay lidaalika aygu 300 oo sano bogiisa caloosha dhulku ku hayay ismana bedelin ama bani aadanka isaga waa la rogaya mar walba nin dhakhtar oo Jarman ayaa teknolojiyada casrigan ay gaaladu ay wax walba ay baadbaadeen wuxuu ku ogaaday aayada quraanka loo keeno leeyahay aayada akhriso oo baadha jirka bani aadanka iyo ayga bogiisa farqiga u dhaxeeya waxa uu ogaaday cilmigan ayaa keenay buu cilmigan ii sheega aayadan quraanka cilmigan ayaa sheegay anagu cilmigan haddaan helnay buu kuleeyahay oo aalaadkan aan ku helnay oo ku iktishaafnay bani aadanka jirkiisu saacado wax ka badan inuu dhinaca u jiifi karayn ama aygu inuu boqolaal sano xagga u jiifi karo aalaadkan aan ku helnay cilmiga ininka ayaa inii sheegay waxa la cilmiga waxa wuxuu ku soo dagay nabiy al-ummi al-hashimi al-qurashi nabi ummi macnihiisu waa maxay waa ka isagu aan gacantiisa waxna ku qoraynin waxa loo qorana aan akhrin karaynin nabiga alayhi salatu wasalaam ku saliya nabigaas quraanka ku soo dagay ba ka waramaya inuu aygu 3 qarni uu bogiisa ku jiifay markaas nabiga lagu yiri hadaad ku bixi lahayd ayagoo godka jiifa aad u tagi lahayd marka u horeysa baa lagu yiri hee qalbigaaga cabsi baa laga buuxin lahaa markaad aragtana waad baxsan lahayd baa nabiga lagu yiri aayada mufassiriintu waxay sheegeen waa la arkay dhalinyarada inay godka ku jiraan leena waa 3 qarni weeyaan waa la arkay laakiin qofkii arkaba la yiri dhalinyaradu uu la waalan yahay uu leeyahay waqtigan la socda ayay iyagu intay ka soo hadheen zamanka wixii jiray gaalnimadii iyo kufrigii iyo fasaadkii iyo fisqigii jiray intay ka soo hadheen ayay ilaahay cibaadadiisa iyo taacadiisa u banbaxeen markaas lagu sheegay suuratul kahf waana suurada mustahab ay tahay maalinta jumcada in la akhristo waa suurada nabigeenu uu yiri kaleey salaatu wasalaam awaailkeega wa fi riwaayatina awaakhirkeega uu nabigu yiri qofka akhrista tobanka hore ama tobanka dambe fitnada dajjal buu ka badbaadaya buu nabigu ilaahay ka ilaalinaya